wax badan bay iidoon ka soo wareegeen xilligii ay guriga imaadeen ay hal goor waxay maqleen dhawaaq albaabka guriga oo u muuqda in la soo jebinayo balse shakigii ku jiray gabadhan ayaa markiiba isku bedelay argagax maadaama qofkii la xarbinayay albaabka uu si toos ah u soo jebiyey isla markiina uu iloowa ku qabtay baaskooladii uu sitay qofkan wuxuu ahaa jaceylkeeda hore oo ay muddo yar ka hor ka tagtay hadeertan waa kan oo isagu hortaagan misna wejiga uga haya baaskooladiisa iloowa isla markii ay aragtay Linda Beck aad ay u qaracantay قيلو أفك فرطي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب قيمة بدن وسود بعض مقال عصب. iloowa Christina Pimentel oo ah gabadha ay maanta qisadeenu ku socoto waa gabar 20 jir ah oo ka soo jeeday dalka Brazil kuna nooleed xaafad kamid ah xaafadaha magaalada Santo André ee gobolka São Paulo maalinka ay dhacdadan foosho xun qabsan doonto gabadhan oo ahayd xilli galabnimo ee maalin Isniin ah taariikhduna ay ku beegneed 13 bishii Oktoobar 2008 ayay iyada iyo gabar kale oo saaxiibadeed ah oo iyana lagu magacaabo Nayara da Silva oo ay la socdaan laba wiil Leo iyo Victor waxay iska soo raaceen iskuulkooda oo xilliga la soo fasaxay soo aaday guriga reerka ilooba si ay uga wada shaqeeyaan group project oo iskuulka looga soo diray maalinkaasi xilligii ay gurigan imaanayeen cidna ma joogin oo ilooba waalidiinteedii waxay ku maqnaayeen shaqo halka walaalkeedna uusan wali iskuulkii ka iman saadarteed waxay guriga joogeen afartooda oo kaliya wax badan bay iidoon ka soo wareegeen xilligii ay guriga imaadeen ay hal goor waxay maqleen dhawaaq albaabka guriga oo u muuqda in la soo jebinayo misna uu qof la xarbinayo qofulkii way iska cadeed qofka albaabkan sidan yeelaya in uusan ahayn walaalkeeda ama waalidiinteeda taa oo markiiba shaki badan ku beertay ilooba iyadoo markiiba soo aaday dhankii albaabka si ay u soo fiiriso balse shakigii ku jiray gabadhan ayaa markiiba isku bedelay argagax maadaama qofkii la xarbinayay albaabka uu si toos ah u soo jebiyey isla markiina uu iloowa ku qabtay baaskooladii uu sitay qofkan wuxuu ahaa Linda Beck Fernandes Alves 22 jir ay ilooba si fiican u taqaano misna ah jaceylkeeda hore oo ay muddo yar ka hor ka tagtay misna ay ku tiri kuma rabo walaal ilooba iyo Linda Beck waxay wada kulmeen 2 sano iyo 7 bilood ka hor dhacdadan xilliga ilooba waxay da'ahan jirtay sida la sheego 12 sano oo kaliya halka Alvesna uu jiray 19 sano inkastoo farqi xoogaa weyn u dhaxeeyo da'dooda haddana labadan ayaa markiiba iska helay iyagoo muddo yar kadibna isku qaaday dareen jacayl ah sidiina iskula socon doona misna xiriir ku wadi doona 2 sano iyo 7 bilood ee xigtay intii lagu jiray muddadan ay wada socdeen wiilkan ayaa wuxuu jacayl waali ah u qaaday gabadhan ilaa heer uu xitaa si xad dhaaf uga maseero ficilada yaryar ee ay sameynayso sida hadii uu ku arko ayadoo kaligeeda magaal ka socoto oo kale misna aysan isaga u soo sheegin in meel heblaay ay aadi rabto oo kale sida aad filan kartaana maseerkan xad dhaafka ay wuxuu ka dhigay qof aan lala joogi karin misna aan la noolaan karin aadna u kulul dabeecadiisuna ay xun tahay sidoo kale gacanka hadalkiisana uu aad u badan yahay inta oo kaliya kuma ekaane wuxuu xitaa bilaabay in gabadhan uu dabagalo oo si qarsoodi ah u daba socdo meel kasta oo ay magaalka ka aadayso sida la sheego maalmaha qaarna inta uu wadooyinkii kaligeeda ku qabto ayuu aad ugu qeylin jiray isagoo ka cabanaya misna weydiinaya meesha ay ka timid iyo sababka ay uga qarisay in meeshan ay aadi rabto iyo wax la mid ah malaha waxa laga yaabaa in uu xogaa ka yar shakisnaa oo gabadhan ama wax saas camal islaha almuhim sheekadan af oo kaliya kuma koobneen oo wuxuu dhowr jeer gacan u qaaday gabadhan taa oo keentay in ugu dambeyn ilooba ay xiriirka u jarto Alves misna ay ku tiraahdo waa bes oo waan ka daalay arinkan balse tani ma ahayn mid ka dhaadhacday Linda Beck oo uu aqbali karay isagu ilooba wuxuu u arkaa in ay tahay noloshiisa oo dhan ayada la'aanteedna marna dhadhan uma lahayn nolosha sidan fududna kuma sii deyn karo oo ilooba waxay ahayd qoftiisa aan cid asaga ahaynna marna uusan hanan karin hadeertan waa kan oo isagu hortaagan misna wejiga uga haya baaskooladiisa ilooba isla markii ay aragtay Linda Beck aad ay u qaracantay iyadoo qeylo afka furatay inta uusan dharbaaxo ku aamusin Linda Beck isagoo gadaal ugu tuuray gurigii albaabkiina dhaxal ka xiray xanaaqa iyo cadowtinimada uu qabay Linda Beck ilooba oo kaliya uma muujin ee wuxuu sidoo kale si xun xanaaqiisii ugu furfurtay labadii wiil iyo gabadhii Nayara ee ilooba la joogay isagoo si cad ugu sheegay in meeshan uu yimid in uu dilo ilooba sidoo kalena asagana uu isdilo iyagana hadii ay isku dayaan in ay ka hor istaagaan ay la dhiman doonaan labadooda wuxuu markiiba isugu geeyay hal qol asagoo meeshaasi ku dhaxiray dhowr saacadood mar laga sii joogo ayaa hal mar haddana waxa mar kale ay wada maqleen albaabkii guriga oo uu qof la xarbinayo misna uu isku dayayo in uu soo jibiyo markan wuxuu ahaa Aldo aabihii dhalay ilooba oo isagu ka yimid shaqadii balse markii uu isku dayay in uu albaabkii soo furo arkay in dhaxda laga soo xiray albaabka Aldo wax war ah uma haynin in gurigan lagu dhaxaysto gabadhiisa oo ayba maxbuus ku tahay isla markiina Linda Beck intuu albaabkii ku cararay ayuu wuxuu bilaabay in uu ku qeeliyo oo aabihii ilooba
uu u sheego inuu isaga fogaado albaabka misna uu guriga ku dhaxaysto gabadhiisa iyo asxaabteeda walina uu hubaysan yahay oo uu sito baaskoolad taa oo keentay in markiiba Aldo uu gadaal uga dogto albaabkii isagoo sidiina ku wargeliyay booliiska oo iyagu muddo yar kadib soo gaaray guriga markii booliisku ay yimaadeen waxay markiiba garteen hawshan adag ee u taala ninkan waa shakhsi hubaysan oo haddii ay isku dayaan in ay awood isticmaalaan misna gurigii ay ugu galaan wuxuu markiiba dhibaateyn karaa afarta qofood ee guriga kula jira wadada kaliya ee u furneed in Ilooba iyo asxaabteeda looga badbaadiyo ninkanna waxay ahayd in ay isagu la hadlaan misna ay heshiisyo la gaaraan kuna qasbaan isagoon wax dhibaato ah gaarsiin in uu soo wada fasaxo afartan qofood waxaana sidii ku bilowday wada hadaladii iyo wada xajoodkii ay kula jireen Lindeberg intii lagu jiray maalinkii ugu horeysay dhacdadan xoogaha way ku guuleysteen in ay ninkan wax ka dhaadhiciyaan oo xitaa wuxuu ogolaaday in uu iska soo fasaxo labadii wiil ee uu meesha ku haystay isagoo sidii ku reebtay Ilooba iyo Nayara oo kaliya balse dhanka kale marka laga fiiriyo sina booliisku way ugu dhibtoodeen ninkan maadaama si lama filaan ah uu isku badbadalayo jawigiisa mar waa qof caadi ah oo ogol in booliisku uu la hadlo marna wuxuu bilaabayaa in uu aad u caroodo isagoo xitaa hal goor dhowr xabada ku furay dad guriga albaabkii u soo dhawaaday maadaama uu haystay in ay yihiin booliis isku soo ekeysiyay dadka oo raba in gurigii ay u soo dhacaan taa oo booliiskii u xaqiijisay in haddii hal hadal oo qaldan uu ka soo fagto ay Ilooba iyo saaxiibadeeda Nayara ay ku daayeen waxayna ahayd in si taxaddar uu ku jiro ay ula hadlaan misna ula macaamulaan ninkan marna uusan kontaroolka xaaladan farahooda ka bixin balse nasiib darro waxay sheekadiisii xumaan doontaa maalinkii xigay ee dhacdadan subaxnimadii maalinkii labaad abaare hal saac arooriyo waxaa markii ugu horeysay goobtii yimid mid ka mid ah wariyaasha TV maxalli ah oo iyagu baahiyay dhacdadan waxaana markiiba sheekadan ay isku shareertay cirkaasi TV-gii sii daayayna waxa cirka qabsaday tirada dadkii daawanayay tiro aynan ku hamin jirin in ay hal goor wada daawato TV-gooda taa oo keentay in isla markiiba TV-yadii iyo idaacadihii kale ay iyagana soo raadiyaan misna ay soo dirsadaan wariyaashooda oo si live ah u tabin doona dhacdadan si ayagana ay uga faa'iidaan views badanna ay uga helaan dhacdadan ay dadku idil hadal hayaan misna ay ummadoo dhan daawanayso balse dadkan daawanaya TV-ga waxa ka mid ahaa Lindeberg oo isagu gurigii dhex fadhiya misna indhihiisa ku arkaya ummadii oo dhan oo isaga hadal haysa sida in uu yahay atoore misna ay sugayaan wixii uu sameyn lahaa sida aad filan kartaana wax faa'iido ah ma dhalin arinkan oo wuxuu bilaabay in habdhaqankiisii uu sii xumaado ilaa mar ay kaamirooyinkii soo qabteen isagoo Ilooba soo istaajiyay daaqadii guriga misna ku qasbaya in suulkeeda ay kor u taagto dadkii daawanayayna ay u tilmaamto in ay nabad qabto oo wax qaldan uusan jirin ninkanna uusan dhibaateynin waxaasoo idil marka uu sameynayana wuxuu ku dhuumanayaa gabadhan gadaasheeda isagoo ka cabsi qaba in isnaybarada booliiska ay toogtaan macnaha gabadhan ayuu gaashaan isaga dhigaya almuhim taa wax badanba kama soo wareegan haddana inta uu mar kale soo istaago mid ka mid ah daaqadihii guriga ayuu xabad ku furay dadkii ku sugnaa guriga hortiisa inkastoo nasiib wanaag aanu qof dhib ku gaarin xabadahaasi haddana way iska caddeed in ninkan uu kaamirooyinka show u sameynayo misna uu rabo in dadka ay sii hadal hayaan warbaahinadiina laga sii tabiyo xabad ayuu soo riday iyo wax la mid ah oo kale booliiskii meesha joogay ayaana mar dambe sheekadan ku fahmay waxayna ku qasbanaadeen in ay go'aan degdeg ah qaataan misna kontaroolkii xaaladda ay gacantooda dib ugu soo celiyaan waxayna go'aan ku gaareen in ay korontadii guriga ka jaraan si uu Lindeberg awood ugu helin in uu daawado TV iyo wax la mid ah taana waxay keentay in Lindeberg uu aad u caroodo isagoo booliiskii ugu hanjabaya haddii aysan dib u soo fasaxin korontadii in uu jir dili doono gabdhahan wuxuuna markiiba iyagoo maqlaaya bilaabaya in uu garaaco gabadhii Ilooba ahayd Eu ligo, mas vamos conversar. marka laga soo tago qaabkan uu marka hore uga falceliyay Lindeberg haddana tacticadii booliisku way shaqaysay oo waxay ninkan ku qasbeen haddii uu rabo in dib loogu soo fasaxo korontadii in uu iska soo wareejiyo Nayara da Silva taa oo keentay in uu aqbalo codsigooda isagu markii horeba wuxuu u yimi oo kaliya Ilooba oo damba kama lahayn Nayara sidii ayuuna isaga soo fasaxay gurigiina markan waxa ugu haray oo kaliya Ilooba maskiintan oo markan kali ah cid ay weeshatana aanu jirin intan kadib dadkantiisii badan waxay u haysteen in arintan laga salgaari doono oo ay xaasami doonto maadaama haddeer 3 qofba laga badbaadiyay Lindeberg waxaana sidii ku dhamaan doonta maalinkii labaad ee uu gacanta ku haystay Ilooba balse jawigan degan ee uu arinkan ku socdo ma ahayn mid sii raagi doona sababtoo ah maalinkii saddexaad abaare duhurkii mar la sii maraayo Lindeberg oo dhex fadhiyo gurigii misna garan la wax uu ku dhaqaaqo ayaa waxa u soo dhacay telefoonkii ay kala soo xiriiri jireen booliiska waxaad moodaa isagana in uu filanayo oo wuxuu islahaa waa booliiskii oo markan wada hadaladii sii wadi doona balse codkii uu maqlay wuxuu ahaa qof cusub taa oo keentay in uu weydiiyo yaa tahay adiga Lindeberg, tá tudo bem aí?
Ô Lindenberg, somos um amigo da família, a gente queria saber se tá tudo bem, só isso. Lindenberg, é Luiz Guerra, tudo bem? Somos conhecidos da... Luiz Guerra. waryahan oo lagu magacaabo Luis ayaa isagoon wax ogolaansho ah ka wadan qoladii booliiska ayuu intuu si qarsoodi ah ku helay lambarkii guriga ee ay booliisku kala hadlayeen Lindenberg wuxuu go'aansaday in uu iska wacaba yani ninkan weyn aqligiisu ma siin in uu qiimeeyo xaaladda xun ee la taagan yahay taa waxa kaaga sii daran in uu sanba u diyaarsaneen xaaladan oo kale oo sida laga arki karo muuqaalkan markii laba eray ay isdhaafsadaan asaga iyo Lindenberg in uu bilaabay qalqal hadalkii oo dhanna uu isku dardaray wuxuu ugu horeen hadalkiisa ku bilaabay kelmad been ah oo markii Lindenberg uu weydiiyay tahay wuxuu isku dayay inuu isaga dhigo qof reerkiisa yaqaan oo kale ama saaxiib la reerkiisa ka hor inta uusan qalqalin asagoo markii dambe sheegay inuu yahay wariye ka socda TV caan ah oo gudaha wadankaasi laga yaqaan intii uu koolkoodii socdayna wuxuu mar weydiinayaa hadii uu la hadli karo Iloba oo iyadu sida codkeedii laga dareemi karo aad u daalan misna u hadlaysa sida ciibtinimo ay ku jirto iyadoo meeshaasi ugu diri doonto reerkeeda fariin u muuqatay in ay macsalaameynayso oo kale oo markan ay rajo dhigtay Você tá precisando mandar um recado pra sua mãe, alguma coisa? Eu queria saber como ela tá, como meus familiares estão. Tá tudo bem com eles, tá tudo tranquilo. Um beijo da minha mãe pro meu pai. Eu queria falar pra minha mãe que eu amo ela. Pro meu pai também. Eu amo ele. inkastoo ficilka waryahan aanu markiiba xaaladii xumeyn haddana wuxuu wado u furay kuwa badan oo isagu la mid ah oo u hanqal taagaya oo kaliya in ay sameeyaan wax aan horay loo sameyn misna views badan ay helaan markii ay ninkan wici waayaan ama telefoonkii uu ka qaban diidana meesha aanay uga hareen oo xitaa waxay si toos ah kaga hadlayaan TV-ga iyagoo og in uu daawanayo inta ugu badan wariyaasha tabinaya dhacdadan uma dhaqmeen sida in ay naf bani aadam ah ku jirto halis oo waxay dhacdadan ka dhigeen sida film ama musalsal drama oo kale wuxuu hamigooda ahaa oo in ay viewskooda kor u qaadaan sida laga dareemi karo si midda ay u gaaraan TV kastaaba wuxuu sameynayay wax ka sii daran TV-ga kale midana waxa ku cadeyn kara hadallada ay wariyaashan iyo ninkan oo barnaamijkooda ku casuuman ay isdhaafsadeen barnaamijkan oo laga sii daayay mid kamid ah TV-yada maxalliga ah ee dalka Brazil xilliga afduubkan uu socday ayaa ninkan oo isagu lagu casuumay barnaamijkan maadaama uu yahay sharci yaqaan wuxuu fikrad ahaanba ku dhiibtay in lamaanayaashan ay si wacan xaalkooda u dhamaan doono kaliya wuxuu yahay khilaaf oo hadhow inta ay biisa isla cunaan ay wada heshiin doonaan yani waxaad moodaaba in ninkan uusan arkin halista ay gabadhan yar ku jirto misna ay ku sugan tahay oo ay bacaadi la tahay baaskoolada madaxeeda lagu haayo Eu sou muito otimista, né? Eu espero que isso termine assim em pizza, né? E num casamento futuro entre ele e a namorada apaixonada dele, né? Certo. Ele tá passando uma fase momentânea, né? Ele também tem perdido a motivação de viver, porque um rapaz jovem, quando se apaixona, muitas vezes se desequilibra, que é o caso Radicaliza mesmo, né? Então, mas isso vai terminar realmente em final feliz, graças a Deus, eu tenho plena certeza. taa waxa kaaga sii foolxun oo ka sii doqonsanaydba markii uu wariyihii barnaamijka waday uu bilaabay in uu soo tixo tirada dambi ee Lindenberg lagu xukmaayo iyo muddada dheer uu xabsiga ku qaadan doono haddii uu hadeer isu soo dhiibo xitaa haddii uusan wax dhibaato ah u geysanin gabadhan Iloba haddii aad hadalkaasi si fiican u maqashayna waxaan filayaa inaad ila arki kartaan mushkilada weyn uu arrinkaasi dhalin karo ragga booliiska ah markii ay la gorgortamayaan qof dambi galay sida Lindenberg oo kale wuxuu hamigoodu yahay in aysan u muujin in noloshiisii wixii ka dambeeya ay burburayso ama xabsi muddo dheer uu ku qaadan doono waxa sidaas loo sameynayana waa si qalbigiisa uu soo jilco misna uusan u dhibaateen qofka uu afduubtay balse haddii Lindenberg uu dhageysto hadalka wariyaashan oo u sheegayo in ugu dambeynba xabsi dheer uu sugayo waa sida in ay ku dhahayaan ama dil ama dhaaf gabadhan way ku dhamaatay taa oo Lindenberg ku qasbaysa in uu gabadhan dhibaateeyo maadaama kor iyo hoosba ay nolol kale u harin intan kadib waxaana idil marka ay dhaceenna Lindenberg wuxuu markiiba gaabiyay hadalkii iyo heshiisyadii uu la waday booliiska waxaad moodaa waraysigii iyo hadaladii uu TV-ga ka arkay in ayba uga sii dareen wuxuuna yaqiinsaday in dhacdadiisa ay tahay markan midda ugu muhiimsan wadanka oo dadku dhan ay hadal hayaan wuxuuna diyaar u ahaa in dhammaan dadkaasi daawanaya uu show aan caadi ahayn u soo bandhigo wixii inta ka dambeeyayna wuxuu dhowr jeer ka soo muuqanaya daaqadii guriga isagoo ku dhuumanaya ilaa gadaasheeda sida markan oo kale oo gabadhan cunno loo soo dhiibay ay ka soo qabsanaysay qaybta hoose ee guriga booliiskii gobolka São Paulo waxa gacmahoodii ka baxay controlkii xaaladan gabi ahaanbana way maxaan ku raada ku fashilmeen 24 saac waxa la kor taagan yahay kaamirooyin si joogto ah live uga sii deynaya TV-yada taa oo macna iyagu gacmihii ka xirxirtay maadaama hadeer Lindenberg uu la socdo dhaqdhaqaaq kasta oo ay sameynayaan kuma degdegi karin xaaladan
iskabadaa in ay ciidamadooda u dhacaan gurigii xitaa haddii ay u yara dhawaadaan waxay keeni kartay in Lindeberg uu ku kaco fal aad u xun waqtigu uu isguraya waxaana sidaan ku dhamaanaya maalinkii saddexaad oo gabagabadiisii la taagan yahay intan kadib ma ahayn mid ay kasii aamusnaan karaan oo waxay u baahnaayeen xal waliba si degdeg ah in ay ugu dhaqaaqaan balse degdegsiimadan ay ku dhaqaaqi doonaan ayaa noqon doonta midda wadnaha jari doonta qof kasta oo dhacdadan la socday subaxnimadii maalinkii afraad ee xigay booliiskii ayaa waxay bilaabeen wadahadaladii ay kula jireen Lindeberg ugu horeen wax waliba waxay u muuqdeen kuwo socda sidii la rabay oo Lindeberg wuxuu aqbalay in uu soo dhiibo isagoon wax dhibaato ah u geysanaynin gabadhii yareed ee Ilooba balse wuxuu dalbaday arin aanay cidna ka filanayn sidaad qiyaas kartaaba Lindeberg muddadii uu halkan ku dhaxaysto Ilooba waxa sii badanayay cabsidii uu ka qabay booliiska in ay toogtaan mada aynan u dhicin oo markii gabadhan uu soo fasaxayo aan loo toogan wuxuu booliiskii ka codsaday in ay guriga ugu keenaan gabadhii Ilooba saaxiibadeed ahayd ee Nayara iyo Ilooba walaalkeeda Douglas kadibna markii ay guriga albaabkiisii hore yimaadaan Nayara iyo Douglas ay afartooda oo isla socda ay ka soo degi doonaan jaranjaradii guriga taa oo la micno ah in ninkan uu damacsanaa in uu ka dhigto gaashaan oo xabadaha booliiska hadii ay dhacdo inay ku soo ridaan uu kaga gambado inkastoo midan ay tahay codsigii ugu xumaa ee booliiska uu weydiisan karo haddana waxa la yaab lahayd in ay aqbaleen yani waxay ka dhigneed hal gabar ayaa haysataa oo nafteeda halis kuugu jirta balse waan ogolnahay oo laba qof kale ayaan kuugu keenaynaa oo iyagana halis gelin doonaa naftooda waxayna markiiba aadeen xaafadii ay ku nooleed Nayara si ay u doonaan oo ay u keenaan maskiintan oo wali aan ka soo kabsan argagixii ay la kulantay maalin ka hor iyo xaaladda foosha xun ee ay ku jirto saaxiibadeeda qaaliga ah ayay ka soo wadeen gurigeeda iyadoo ka warhayn in jaxiimadii ay ka soo baxday maalin ka hor dib loogu celin doono balse isla markii ay yimaadeen gurigii Nayara misna loo sheegay wax la damacsanaa Nayara waxay aqbashay in ay ku laabato guriga iyadoo xitaa la hadalsiiyay Lindeberg misna weydiinaysa haddii ay dhab ka tahay oo uu sameyn doono sida uu sheegayo taa oo uu ku jawaabay ha igu kalsoonow Tudo bom? Tá melhor já? Tô, você tá calmo aí? Tudo calmo. Você vai fazer mesmo tudo isso que você tá falando? Confia em mim? Confio. waxay hal goor kaamirooyinkii oo idil ay u wada jeesteen dhanka iyo gurigii Ilooba lagu haystay Nayara iyo Douglasna waxay bilaabeen in ay aadaan dhankii albaabka balse mar ay u sii dhow yihiin oo ay albaabkii ku sii dhawaanayaan ayaa si lama filaana hal mar Lindeberg isu bedelay oo wuxuu bilaabay in booliiskii uu ku qeeliyo isagoo u sheegaya in uusan sameyn doonin oo albaabka uusan ka furayn Nayara iyo Douglas oo heshiiskii uu ka baxay waxa isbedelay fikirkiisa sida muuqatayna aad ayuu u qalqalsanaa malaha wuxuu ka yar cabsaday wiilkii yaraa ee Douglas oo isagu walaashi uu haysto wax kastaana sameyn kara taa bedelkeedna wuxuu booliiskii weydiistay in haddii ay rabaan inuu si soo dhiibo ay la haraan Douglas misna ay u soo diraan oo kaliya Nayara oo cidna aysan la socon habdhaqankiisan oo kaliya iyadoo la fiirinayo way iska cadeed in ninkan uusan ahayn mid lagu kalsoonaan karo Nayara kaligeed in loo diro albaabkii gurigana waxay ahayd mid halis ah maadaama heshiiskan uu ku jiray in wax ciidan ah aysan ka soo agdhawaan guriga waxay la micno ahayd in wax walba ay gabadhan ku dhici karaan qof ka badbaadin doonana uusan jirin oo kaligeed ay tahay haddana saa ay tahay qoladii booliisku waxay u ogolaadeen in ay u sameeyaan sidii uu rabay gabadhii yareed ee Nayara iyadoo laftirkeeda uma furneen doorasho kale oo ma diidi karin arinkan oo waxa dusha ka saarneyd mas'uuliyadda saaxiibadeeda oo ay dunida ugu jeceshahay wax walibana ay u sameynayso waxayna sidii ku bilowday in iyadoo kali ah ogna in wax walba xun ay ku dhici karaan ay ku aado dhankii albaabka guriga waxay socotaaba ugu dambeyn markii ay hor istaagtay albaabkii misna ay sugayso oo kaliya in Ilooba iyo Lindeberg oo isla socda ay ka soo baxaan waxay hal goor ka war heshay gacanta Lindeberg oo inta uu soo jiiday ku tuuray guriga dhaxdana ka xirtay albaabkii go'aankan oo idil wuxuu ahaa qaladkii ugu foosho xumaa ee ay booliisku geysteen waxaaba markii horeba qalad ahayd in ninkan ay ka aqbalaan codsigiisii balse kaaga sii daran in gabadhan oo maalin ka hor xumadaasi ka soo badbaaday kaligeed haddana ay dib ugu diraan gurigii ma qiyaasi karo heerka doqonnimada ay gaarsiisaneed ragga waxaan aqbalay sida aad filan kartaana dib u qabsashada Nayara waxay sii laba jibaartay shacbiyadda dhacdadan TV-yadii oo idilna waxay heleen daraamadii iyo maxaa ku dhahdaaye hadalhayntii ay rabeen intan wixii ka dambeeyayna booliiskii waxay garwaaqsadeen in laga caqli badiyay misna wada hadaladii ay kula jireen Lindeberg wax miro dhal ah uusan lahayn waxay ahayd xilligii ay adeegsan lahaayeen awood waxayna markiiba meeshan ugu yeereen ciidamada booliiska gaarka ah ee loo yaqaano GATE inkastoo ay ka warhayaan in kaamirooyinkii oo idil ay hayaan gurigiina ay u weerari karin si bareer cad ah misna Lindeberg uu la socdo wax walba ay sameynayaan haddana waxay ku dhaqaaqeen mishinkooda wax yar kadibna ciidamadii gaarka ahaa ayaa bilaabay in albaabkii ay ku xiraan bamkii ay ku jibin lahaayeen indhihii dadka idil waxay wada qabteen gurigii iyagoo sugaya
waxa xiga ee dhici doona ka hor inta aanu hal mar qarxin albaabkii guriga misna isaga oo dhan uusan daboolin qiiq wixii intaa xigayna waxay ku dhaceen ilbiriqsi oo hal goor qarxintii albaabka wax yar kadib waxaa daba socday dhawaaqa 4 xabadood xaaladii goobta oo dhan way isbedeshay muddo yar kadibna waxa albaabkii guriga ka soo baxday Nayara oo iyadu lugaheedii ku istaagi kari la misna uu dhiig badani ka baxayo wajigeeda iyadoo ku kor dhacday gacmaha mid ka mid ah ciidamadii meesha taagnaa wixii intaa xigayna ciidamadii ayaa ku cararay guriga iyagoo markiiba soo bixiyay Ilooba oo lagu siido sariir isla markiina lagu la cararay isbitaalka booliiska waxa u suura gashay in ay gacanta ku dhigaan Lindbergh balse nasiib xumo khasaarihii waa hor ayuu dhacay wuxuu 3 goor xabad ku dhuftay gabdhihii xabadii ugu horeysay wuxuu la helay Nayara oo iyadoo marka hore ay uga dhacday gacanta kadibna ay u sii gudubtay wajiga halka Ilooba yana uu la helay 2 xabadood isagoo mid uga dhuftay gumaarka ama qaska agtii halka midka kalena ay si toos ah madax uga dhacday taa oo keentay in gabadhan ay markiiba gasho kooma aad u xun inkastoo la isku dayay in xaaladeeda xun lala tacaalo balse nasiib darro haddana dhowr maalmood kadib waxay ka hooyatay dunidan oo waxa markii dambe la shaaciyay in Ilooba ay gooriyootay taa oo ay aad uga xumaadeen dhammaan qof kasta oo dhacdadan la socday qaas ahaan bulshadii ku nooleed gobolka São Paulo waxana aaskeedii ka soo qayb galay dad kor u dhaafaya 30,000 oo qofood oo iyagu u muujiyay sida ay uga xun yihiin waxa ku dhacay iyo qaabka ay booliiska ugu ciyaareen xaaladeeda dhanka kale gabadhii Nayara ahayd waxana si wanaag ay markii dambe ka kacday dhibkii loo geystay iyo dhaawacii waxayna muddadii xigtay daaha ka qaaday sida foosha xun ee ay booliiska ula macaamileen kiiskan iyadoo xitaa farta ku fiiqday kadib markii ay ciidamada soo jibiyeen albaabka oo ay qarxiyeen in ay muddo banaanka taagnaayeen misna aanay si degdeg ah ku soo galin guriga kahor inta uusan Lindbergh ku furin xabadda inkastoo midda ay booliisku iska diideen oo sida ay ku marmarsiyoodeen tilmaamay in albaabkan ay jibiyeen kadib markii ay maqleen dhawaaqa xabadda haddana midda dhab ma ahayn oo waxa cadeemo laga helay muuqaalada ay TV-yadii duubeen oo laga arki karay kadib markii ciidamada ay qarxiyeen albaabka in dhowr second 15 ilaa 20 second ku dhow aynan xitaa meeshooda ka dhaqaaqin kadibna uu Lindbergh furay xabadihii halka sidoo kale ninkii Lindbergh ahaa isagana muddo maxkamadeed dheer kadib markii dambe lagu xukumay 98 sano oo xabsi ah balse nasiib xumo waxa ninkani badbaadiyay sharciga ciqaabta ee u yaala wadanka Brazil oo aan ogolaaneyn in qof hal goor lagu xukumo wax ka badan 30 sano oo xabsi ah taa oo keentay in ugu dambeyn muddadii xabsigiisii laga yareeyo misna laga dhigo 30 sano oo kaliya waxay ahayd arin ay dad badan aad uga xumaadeen in ninkan uusan helin ciqaabtii u qalintay dambigii uu geystay inkastoo aan rabin in muuqaalkan uu ka sii dheeraado inta uu hadeer yahay haddana waxa muhiim ah inaan ka hadalno arin xasaasi ah oo shaac baxday kadib dhacdadan saadarteed aan wax yar gadaal ugu noqono kadib markii ciidamada booliiska ay gudaha u galeen dhismihii misna ay soo saareen Ilooba oo sariir lagu sido wuxuu muuqaalkaasi wadnaha istaajiyay aabaheeda Aldo oo isagoo goobtii ku mirdaboolmay taa oo keentay in kaamirooyinkii ay soo qabtaan isagoo loo sii wado dhanka iyo ambulasta si xaaladiisii loola tacaalo balse wajiga ninkan oo shaashadaho idil ka muuqda ayaa wuxuu noqday mid uu aamini waayay mid ka mid ah dimibaarayaasha dawladda Brazil oo isagoo xilliga daawanaya dhacdadan si live aan ula socday sida markii dambe soo shaabixi doonta Ilooba aabaheeda Aldo wuxuu ahaa dilaa lagu raajoogo oo muddo aad u dheer ay booliisku Brazil raadinayaan waxana lagu haystay dilka 2 qofood ee uu ku soo dilay gobolka Lagos magaciisa saxda ahayna wuxuu ahaa Everaldo Pereira dos Santos intii uu booliiskii ka dhuumanayay ayuuna magaciisii ku soo gaabsaday Aldo oo kaliya kadib markii ay booliisku ka war heleen shakhsiyada saxda ah ee Aldo wuxuu ka cararay magaaladaasi oo dhan ilaa ugu dambeyn sanad kadib lagu soo qabtay isagoo ku dhumaalaysanaya isla gobolkii uu ku dilay dadkii ee Lagos markii inta laga soo tago waan dib ugu laabano dhacdadii gabadhan Ilooba iyo jaceylkii waalnaa ee nafteeda dhaafiyay maxay tahay fikradda aad ka qabto dhacdadan sidoo kale waa maxay dhacdadii ugu xumeed ama sheekadii ugu xumeed ee maqashay oo ka hadlaysay qof uu jecel yahay dib u geystay maseer uu ka qabo aawadii fadlan igu soo qor qaybta hoose commentiga waxaan rabaa inaan sheekooyinkaasi maxaan ku raadaa daalacdo waan akhriyo halkan aan kaga baxaya muuqaalkan waa inoo muuqaalka kan xiga waxaan kaga tegayaa sidaa iyo amaan Allah